dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo aad u culus ayaa ka bilowday gobolka kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Masar Dr. Abdel Ati uu khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalalka Soomaaliya, Turkiga iyo sidoo kale Djibouti. Wadahadalladan ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha amni ee sii xumaanaya ee Geeska Afrika iyo tallaabada Israel ay ku dhaqaaqday ee ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. wasiirada afarta dal ayaa cod midaysan gaashaanka ugu daruuray si adagna u cambaareeyay tallaabada Israel ay ku sheegtay inay ku aqoonsatay maamulka gooni isutaagga ah ee Somaliland. wasiirada ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay xadgudub qaawan oo jebinaya shuruucda caalamiga ah, iyagoo caddeeyay in midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ay tahay khad cas oo aanan gorgortan geli karin. wadahadallada ayaa sidoo kale lagu xusay in aqoonsiga gooni ogoosadka ah uu yahay tusaale khatar ah oo halis ku ah nabadda iyo amniga caalamka, isla markaasina ka soo horjeeda mabaadi'da qaramada midoobay. ugu dambayn, wasiirada ayaa hoosta ka xariiqay in ixtiraamka madax bannaanida dalalka uu yahay tiirdhaxaadka xasiloonida caalamka, waxayna sidoo kale si wadajir ah u diideen qorshe kasta oo lagu barakicinayo shacabka Falastiin, iyada oo tallaabooyinka noocaasi ah ku tilmaamay kuwo aanan la aqbali karin, taas oo muujinaysa in xulafadani ay leeyihiin aragti midaysan oo ku aadan ilaalinta xuquuqda dadyowga iyo madax bannaanida dalalka. shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.